السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسور هذا مركله إيو FBL Somali وعنيقو هذا عبد العلي ومركله إذن لسه 20 دونه حلقة كله أو كسبسن يورو 2020 فانتسي فوتبول برنامجكن إنه قدام بيه وحنا هذا اللي ليميتلس إيو وايلد كارد أو المعموليات بدنا يوقف فايزين ورجينا لبعض إستحات ورج أفراد أو ورج اللي حيتوانك أو نقص ولا ماضي أي لعين كلما بحساب بدن أو حلول مهمة أي سهرين kulamadaasi iyo xaqiiqooyinka ugu muhiimsanaa ayaan ka hadlaynaa saaxiibal marka leh ku soo dhawaada FBL Somali kulamadii quarter finalka lagu soo gudbayay wareegga 16 kulankii ugu horeeyay waxa uu ahaa kulankii dhaxmaray Denmark iyo Wales xulka Wales oo hogaaminayeen Aaron Ramsey iyo Gareth Bale ayaa 4-0 looga badiyay kulankaas oo kooxda Wales la filayay inay ugu yaraan goolal iyo wax uun ka keento laakiin xulka Denmark oo la filayo inay dhiirigelin ka helayaan maadaama ciyaaryahankooda Christian Eriksen oo xaalad ay la kulmay oo waxaan xasuusanaa in garoonka dhexdiisa uu ku dhacay taasoo la sheegay in ciyaaryahanadaasi Denmark ay dhiirigelin ka heleen oo ay rabaan in ay muujiyaan dadaalkooda iyo maqnaanshihiisana si aan loo dareemin xulkaas ayaa 4-0 ku badiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Dolberg ayaa laba gool dhaliyay Braithwaite oo weerar ah ayaa isna gool dhaliyay daafac lagu magacaabo Mele ayaa waxa uu ka keenay meeshaasi 12 dhibcood ayuu keenay markii fantasy-aan dhibcihiisa loo xisaabo xulka qaranka Talyaaniga iyo Austria oo arkayna waxa la isla gaaray daqiiqadihii 30 oo dheeraadka ahaa oo Talyaaniga oo filayay in xulkan Austria oo islahaayeen qanaaco badan ay ka muuqatay in ay degdeg ka soo bixi doonaan islahaayeen laakiin waxa la gaarsiiyay ilaa iyo 30 dheeraadka lagu daro oo goolasha waxa la iska dhaliyay daqiiqadihii 30 lagu daray la iska dhaliyay oo Talyaaniga waxa uu ka dhaliyay Federico Chiesa oo kamid ah da'yarta hadda Talyaaniga aadka ugu mustaqbalka oo fiican ku jira iyo Bessina oo asna goolkii labaad dhaliyay daqiiqadii 104 qaybtii hore ee daqiiqadaha lagu daray ciyaaryahanka kale ee asna goolka u keenay Kasalic lagu magacaabo Kalasic waxa uu ahaa gool madax ah oo meel laab uu ka helay waxaanu u soo celiyay goosha caalamka ee xulka Austria xulka qaranka Holland oo la filayay in ayagana ay meel fiican ka gaaraan ayaa ayagana soo haray oo xulka Czech Republic oo wacdaro dhigaya xulka sanadkan Eurogan ayaa 2-0 kaga badiyay waxa daafaca Delit ayaa ka qaatay kaarka cas taas ayaa furtay daafacooda oo u soo gelisay in ciyaaryahanada Thomas Hollis iyo Schick oo asna goolkii afraad dhaliyay ay goolal ka dhaliyaan saasna ay xulkii la oran jiray Holland caanka ku ahaa banooniga quruxda badan ay uga hareen tartankii iyagoo markii hore guulo ku soo baxay oo wareegii gurubyada si fiican uga soo gudbay waxa kulan asna waxa dhacay kulankii ugu xiisaha badnaa ee ugu goolasha badnaa la iska dhaliyay kulankaasna waxa uu ahaa Croatia iyo Spain Croatia oo ayagana filayay in ayagana ay ku celiyaan Euro 2016 oo markaas ay uga badiyeen xulka Spain 2-1 waxay rabeen inay ku celiyaan laakiin ma suuragelin oo Spain iyo daqiiqadii caadiga ahaa oo 90 daqiiqo waxay ku dhamaatay kulankan 3-3 ay ku dhamaatay oo Pedri oo gool iska dhaliyay iyo Orsic iyo Basalic dhinaca Croatia goolasha u dhaliyeen dhinaca Sarabia Azpilicueta Ferran Torres iyo Morata iyo Ozebal ayaa goolashii dheeraadka ahaa ee daqiiqadii 30 markii lagu daray gadaal ugu keenay waxa xusid mudan in Morata uu halkaas ka dhaliyay gool qurux badan oo muddo uu sugayay Morata wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu jaaniscoonka badnaa ee Eurogan Spainna mar kale ku soo laabtay wadadii goolasha uu dhalinayay Faransiiska waa xulka ugu daran ee hadda laga saaray xulkan waxa loo saadaalinay inuu ku guuleysto sanadkan Euroga 2020 laakiin nasiib darro waxa ay guul darro daqiiqadihii lagu daray 30 kadib
ay kala kulmeen rigoorayaal guuldarro ay kala kulmeen xulka Switzerland. ciyaartii daqiiqadii caadiga ahaa waxa ay ku dhamaatay 3-3 oo mar waxaa jirtayba xulka Faransiiska ay 3-1 ku hogaaminayeen. waa 80 daqiiqo kadib ayaa 2 gool laga keenay 3-3 laga dhigay daqiiqadii dheeraadka ahana shabaqa laga ilaashaday. markaa kadib rigoorayaashii rigooradii ugu muhiimsanaa waxaa ka cunay ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe oo ka soo baxay Eurogan isagoo wax gool aan dhalin. jaanisyada ugu waaweynaa oo cunay ilaa 3 iyo 4 ay gaarayeen oo ciyaartan kaliya inta jaanis ay u cunay wax la tirin kara ma ahayn. marka qaab ciyaareedkiisii dansanaa ee Euroga waxa uu ku soo gabagaboobay inuu cuno gooshii ugu muhiimsaneed rigoorayaasha ee xulkiisa ay uga hareen UEFA Euro 2020. xulka qaranka Germany iyo England oo ayagana is arkayna waxa ay ku soo dhamaatay 2-0. waxa ay noqotay kulankii ugu horeeyay tan iyo 1966 markaas oo Germany iyo England ay isku arkeen finaalkii koobka adduunka ay England ka badiso xulka qaranka Germany oo kulan aan ahayn wareega. marka kulamada hadda ugu dambeeyay oo Germany iyo England ay sarkayeen oo dhan ay tartamada waaweyn waxa badinaysay Germany ayaa badinaysay. waxa uu lagu xasuus badan yahay kii 1996 Euro 1996 sidoo kale fi semifinalkii 1990 ee koobkii Itaaliya ka dhacay iyo koobkii adduunka 2010 oo 4-1 looga badiyay Ingiriiska. marka kulankaas waxa lagu xasuustaa banoonigii Lampard uu dhaxda ka tuurayay inta shabaqa diilinta intay gudubtay kadibna uu goolaha Neuer oo soo qabsaday markaas oo la dhahay gool ma aha oo garsoorayaasha ay u maleeyeen in gool ahayn. marka German iyo taariikhdaas ay dhex taalay laakiin tababare Gareth Southgate iyo ciyaaryahanadiisa taariikh cusub ay dhigeen oo waxa ay ku badiyeen 2-0. ciyaaryahanka Sterling oo gooshiisa saddexaad dhaliyay tan iyo intii uu tartanka bilowday goolashii hadda England ay dhaliyeen oo dhan intii ka horeysay kulankan asagu baa soo dhaliyay iyo Harry Kane oo asna goolshiisa ugu horeysay helay. England waxa cusubman ay ilaa hadda wax gool laga mar dhalin waxa ay noqon karaan maamulayaasha wax badan oo ay ku tirsan. kulankii kale ugu dambeeyay wareega 8-dhamaadka loogu soo gudbay waxa uu ahaa Sweden iyo Ukraine. kulankana waxa la isla gaaray ilaa iyo daqiiqadii 30 waxa ayaa ugu dhinaa kan oo waxa ay rigoorayaasha ay xorowdinaa oo daqiiqadii ugu dambeeyay ee 30 lagu daray ayaa goolka guusha laga dhaliyay xulka qaranka Sweden oo halkaasi ayagana ku soo gabagabeeyay tartankii ay ka qayb galayeen sanadkan. Ukraine uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Andriy Shevchenko oo aan xasuusano inuu yahay ninka kaliya ee Ukraine u dhashay ee ku soo guuleystay bilada Ballon d'Or ayaa haddana ku hogaamiyay xulkiisa inay u soo gudbaan wareega 8-dhamaadka. intaas markaan ka gudubno waxaan u gudbaynaa kulamo kale oo xiiso badan oo ay ugu weyn yihiin kulanka Belgiumka iyo Italy kulanka kale Spain iyo Switzerland kulanka England iyo Ukraine iyo kulanka asna ugu dambeeya oo lagu soo gabagabayn doono kulamada 8-dhamaadka waa Spain waa Denmark iyo Czech Republic. kulamadaasi maamulayaasha sida ay u qaadan karaan iyo ciyaaryahanada iska fiirin karaan ayaan fiirinaynaa. mar kale daawadayaal waxaan xasuusinayaa in FBL Soomaali aad ku soo biiri kartaan oo aan Facebooka iyo Twitterka iyo Instagramkaba aan ku baahino. sidoo kale YouTube-ka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar. waxaan soo badin doonaa oo aan hadda rabnaa aan ka shaqeynaynaa FBL-ka oo sanadkan bilaaban doona inaan soo saarno muuqaalo ku saabsan sida aad u samaysan karto oo aad ugu soo biiri karto ilaa iyo waxyaabaha laga faa'iido iyo danta kugu jirta inaad ciyaarto fantasiga. mar kale ku soo dhawaada FBL Soomaali. waxaan u soo gudbinay wareegga 8-dhamaadka oo sharciyada Euro Fantasy-ga ay ka bedelan yihiin kii hore. haddii aad hor u isticmaashay Limitless waxaad ma haysatid inaad mar kale ku ceshtid Limitless-ka waa hal mar oo kaliya. dadka wildcard ka haysta sidoo kale wildcard-ka u isticmaali karaan hadda. laakiin marka la dhaho la wareegista waxaad samayn kartaa ilaa 3 la wareegis ayaa samayn kartaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa xul kasta waxaad ka qaadan kartaa ugu yaraan 4
oo halkaas ayuu kaga duwan yahay wareegyadii hore ee lasoo dhaafay. wareegyada hadda kulamada hadda ugu soo horeeya waa Spain iyo Switzerland. Spain iyo Switzerland oo kale ciyaaraanada hadda ugu muhiimsan oo kale Spain marka fiiriso Pedri oo kale iyo Sarabia waa ciyaaraanada dhexda, daafacyada Laporte iyo ciyaaraanka lagu magacaabo Fabian Torres oo isna ilaa hadda Pau Torres uu yahay midka Fabian Ruiz iyo Pau Torres Ferran Torres magacyadooda iska dhow yihiin. Pau Torres waa daafac isku haleyn karo oo ilaa hadda kusoo bilaabanay Unai Simon oo ah goolahayaha ilaa Morata isagoo goolintiisa iyo yani marka loo fiiriyo nasiibkiisa aysan badneen, haddana Spain oo kale ciyaarannadaas ayaa ka qaadan kartaa. Spain waxay u badan tahay inay ka soo bixi doonto xulka Switzerland oo uu ka maqan yahay ciyaarahan Xhaka oo jaalihii uu qaatay kulankii ay ka badiyeen Faransiiska ay sabab u noqotay inuu kulankan baaqdo. ciyaaraanada Shaqiri Embolo ayaa ka mid ah goolayaha Sommer oo kale waxaa ka heli kartaa dhibcaha gool ilaashada waxyaabahaas oo kale ayaa laga heli karaa. inkastoo ay yar tahay inta ay soo bixi karaan, haddana maamulayaasha waa ay ka faa'iidi karaan. xulka kale ayagana ciyaari doona wareegan waa Belgiumka iyo Talyaaniga. waa ciyaar aad u xiiso badan oo ay ka soo bixi karto mid ka mid ah guuleystayaasha sanadkan la dhihi karo, maadaama Belgiumka ay u socdaan ciyaaryahanno waaweyn oo sanadkan la filayo inay ku guuleystaan waliba loo sadalin. iyo dhinacan Talyaaniga oo hogaaminayo tababara Mancini oo ciyaaryahanno yani yar inta badan da'yar haddana aad iyo aad u caaboon ay u wato. marka ciyaaryahanadaasi kuwa laga qaadan kara Acerbi daafac marka fiirisid, Spinazzola iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Berardi ilaa dhexda Federico Chiesa oo aan xasuusano goolkii guusha u dhawaa ee u dhaliyay xulkiisa. Immobile ayaa ka mid ah, Insigne ilaa iyo Locatelli oo la filayo inuu markaan ka soo hormaro Verratti iyo Jorginho oo dhexda ah. marka ciyaaryahanadaas ilaa iyo 4 ayaa ka qaadan kartaa dhinacaas. Talyaaniga ilaa hadda sida uu ciyaaryahanada uu kaydka u dhigayo uu isku qasayo tababar Mancini waa mid maamulayaasha aad ugu wanaagsan yihiin oo hadda waxaa xasuusnaa Locatelli oo qaab ciyaareed fiican ku bilowday oo goolal ilaa 2 dhaliyay. Verratti ayaa markii dambe dhaawac ka soo kacay lagu bedelay. marka isbedelkaas waxaa laga yaabaa in maamulayaasha uu saameeyo, laakiin waxaa haysta ilaa 4 ciyaartoy inaad xul kasta aad ka keensatid. dhinaca Belgiumka ciyaaryahanada Meunier oo dhinaca daafaca ah, Alderweireld oo asna daafaca ah, dhinaca daafacyada oo kale Courtois maamulayaasha aad ay u iibsanayeen. ciyaaryahanka maamulayaasha inta badan ay ka sinayeen marka la dhaho doorashada waa Lukaku oo hogaaminaya safka hore ee weerarka ee Belgiumka. ciyaaryahan De Bruyne iyo Hazard waa dhexda goolasha laga fili karo ay ka mid yihiin. labadan lama saadaalin karo kulankan runtii oo kulanka ugu dambeeyay labadan ay isku arkeen oo Talyaaniga iyo Belgiumka 4-3 waxaa ku badisay Belgiumka. marka lama saadaalin karo oo Talyaaniga qaab ciyaareedkooda wanaagsan yahay, haddana uu wada macallin oo yani oo ah farsamayaqaan aan dhihi karno. tababar Mancini waa farsamayaqaan, marka waxa suuragal ah in uu meeshan uu ka keeno in xulkiisa ay u gudbaan. dhinaca waxaa gelinaa kulanka Ukraine iyo England. Ukraine iyo England dabcan hadda haddii aad niyadada aad waxaas leedahay waxaa soo bixi karta England oo markii kugu soo dhacaysa, laakiin Ukraine lafteeda lama fududeysan karo. waa markii labaad oo tartamada waaweyn ay ka qayb galayaan quarter finalka, oo waxaa xasuusanaa in 2006 quarter finalka ay soo ciyaareen koobkii adduunka ee Germany ka dhacay. marka Ukraine waxaa la isdhihi karaa ayagana lama yareysan karo. ciyaaryahannadeeda Shinchenko oo daafac ah ilaa iyo weerarka oo Yarmolenko uu hogaaminayo waa isku xiran yihiin oo waxaad moodaa in tababara Andriy Shevchenko uu isla helay aas dhihi kartaa. laakiin waxaa loo badinayaa in xulka Ingiriiska ay soo bixi karaan oo haddii aad 5 ciyaartoy ama 4 ciyaartoy ee sida 4 ilaa 2 oo kale England hadda keensatid waxaa suuragal ah in ay ka faa'iidid. marka England oo kale ciyaarannada u badnaadaan maadaama saadaalinta u badan tahay in England ay soo bixi karto. Harry Kane waa gool dhalintii waa ku soo laabatay oo
xanjadii oo goolalinta uu helay oo hal xabo ayuu helay ilaa iyo dhanka daafaca Maguire oo kale isbedelka uu ku keenay England oo kale waxa la dhihi karaa mid aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa kulanka soo socda waxa laga yaabaa in la nasiyo ciyaaryahanada dhexda Declan Rice ama Calvin Phillips halkaasi waxa fursad ka heli kara Mount ama Foden ayaa laga yaabaa inay fursad ka helaan ama Grealish oo ilaa hadda aanan si fiican aan ugu soo bilaaban iyo ninka kale lagu magacaabo Rashford oo isna fursadiisa ay suurtagal tahay inuu helo maadaama kulankan uu yahay kulan ay isleeyihiin England ay siinayaan oo isleeyihiin waa soo bixi kartaan laakiin mar walbo xulkooda final jooga lama yareeraysan karo kulanka kale waa Denmark iyo Czech Republic Denmark waxay u muuqdaan kuwo in ay wacdar ka dhigaan raba sida 1992 markii ay ku guuleysteen oo ay koobkan qaadeen ayagana markii ugu horeysay marka Czech Republic laftiisa waa ayagana waxa ka muuqdo caabonaan fara badan iyo dadaal fara badan inay 2-0 kaga soo badeen Holland waa ayagana taariikhda ugu jirta marka Schick oo ah gool dhaliyaha ugu badan ayaa u ciyaaray marka Schick oo kale waa lagu xisaabtan karaa waa gool dhaliye fiican ilaa iyo dhinacan Denmark oo kabtanka KJ lahayo asna waa daafaca la filay inay dhibco laga keeno saaxiibayaal intaas ay ugu muhiimsan toddobaadkan oo wareegan hadda 8 dhamaadka mar walba oo wareeg loo gudbo waxa si yaraanayo ciyaaryahanada si baxaya si badan marka tusaale ahaan hadda kulamadii hadda la soo dhaafay hadii aad ciyaaryahanada badan haysatay waxa ku qasbantahay ilaa bedelo in ismahadaadan haysanin jibaarada oo aad sida limitlesska ama wildcardka aad hore iskaga isticmaashay waxaad u baahan tahay ilaa ugu yaraan hal transfer oo negative ah inaad gashid marka aad uga taxadara aad iyo maasantiin saaxiibayaal mar kale waxaan xasuusinayaa inaad ku soo biirtaan channelka oo saaxiibadiina aad ugu yartaan sidoo kalena Facebookga Twitterka Instagramka aad nagala soo socotaan aad iyo maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.